sidee ayaad kooxdaada ama gruubkaaga ugu hagi kartaa guul? ma u malaynaysaa inaad tahay qof hogaamiye ah? haddii jawaabtaadu ay tahay haa, maxay yihiin waxyaabaha kaa dhiman ee aad u baahan tahay si aad u noqoto hogaamiye wanaagsan oo si fiican u hogaamiya kooxdiisa? dad badan ayaa waxa ay isku tiriyaan inay yihiin dad la hago oo aan waxba hagi karin, balse waxay ogaadaan inay yihiin hogaamiyayaal marka ay qabanayaan waxa ay jecel yihiin. hogaamiyenimadu ma lagu dhashaa mise waa la kasbadaa? marka hore aan isla garanno macnaha hoggaan. hoggaanku waa fududeynta in koox ay isku milanto iyaga oo ka midaysan qeexidda aragtidooda iyo ujeedooyinkooda una dhaqaaqaan sidii ay u hirgelin lahaayeen. hogaamiyenimada naf ahaanteedu waa sifooyin ama caadooyin la kasbado oo lagu noqdo hoggaan sare. inkastoo dadka qaar ay u dhashaan hogaamiyenimada, balse waxay u baahan yihiin inay horumar ku sameeyaan oo weliba waxay u baahan yihiin bii'adii ama jawigii ay ku soo bandhigi lahaayeen shakhsiyadooda. si kastaba ha ahaatee, qof walba waxa uu noqon karaa hogaamiye haddii uu jiro rabitaan dhab ah, diyaarna u yahay inuu ku bixiyo dadaal si uu u xaqiijiyo ujeedooyinkaas. waa maxay farqiga u dhexeeya hoggaan iyo maamul? hogaamiyenimadu waxa ay xoogga saaraysaa xiriirka bini'aadanimo iyo xiriirka ka dhexeeya kooxda markay isla shaqaynayso. waxaa kaloo ay muhiimadda siinaysaa mustaqbalka iyo dejinta qorshe dheer. waxay xalinaysaa dhibaatooyinka waaweyn, halka maamulku uu xoogga saaro waxqabadka iyo ilaalinta xeerarka u yaala kooxda. waxa uuna xoogga saarayaa waqtiga markaa la joogo ama xaadirka ah iyo qorshaha dhow, wuxuuna xalinayaa dhibaatooyinka yaryar. sidee ayaad u kobcin kartaa waxyaabaha la xiriira hogaamiyenimadaada? kasbashada waxyaabaha la xiriira hogaamiyenimada kuma imaadaan hal ama 2 asbuuc ama keliya markii la fahmo macnaha hogaamiyenimo akhris ahaan ama theory, balse waxay imaadaa marka la dabaqo waxa la bartay, hagaajin iyo haleyn kadib. waxaan halkan ku sheegi doonaa dhowr qodob oo ah sida aad u kobcin karto hogaamiyenimadaada waxa la xiriira. qodobka koowaad, barashada qorsheynta. maalin maalmaha ka mid ah nin la yiraahdo Aldermaax bin Xaakim oo ahaa nin gabiyaa ah ayaa soo hor fariistay dadkuna yiri iweydiiya wax walba oo ku saabsan luqadda Carabiga, maadaama aan dhameeyay barashada luqadaas oo aysan waxba iigu dhimaneen. qof ayaa weydiiyay waa maxay macnaha Aldermaax. haddaba waa uu awoodi waayay inuu ka jawaabo. sidaas darteed, inta aadan xadidin kooxdaada aragtidiina iyo ujeedooyinkiina, waxaa qasaba inaad adigu xadido aragtidaada iyo ujeedooyinkaaga, kadibna isla jidkaas aad la raacdo kooxdaada. qeex aragtidaada. aragtidaadu waa waxaad aaminsan tahay inaad u nooshahay iyo doorka lagaa rabo inaad gudato noloshaada. waxaad rumayn kartaa inaad u nooshahay inaad fidiso diintaada ama dadkaaga aad waxbarto ama aad kaalmayso dadka dhiban. tilmaanso ujeedooyinkaaga. qeex tallaabooyinka kuu dhoweyn kara aragtidaada, kadibna u kala qeybi heerar kala hooseeya. u kala horumari waxqabadka sida baahidu u kala weyn tahay. mar walba waqtigu waxa uu ka yaryahay hawsha ku sugaysa, sidaa darteed xoogga saar hawsha muhiimka ah. xusuusnow in qorshahu uu yahay mid socda, uusan ahayn mid qaadanaya, bal qorshuhu waa mid isbedeli kara hadba sida guusha loo gaaro iyo mar walba waxa soo cusboonaada. qodobka labaad, awoodda dhiirigelineed. dhiirigelintu waa in uu gaaro qofku heer isaga oo faraxsan uu qabanayo shaqadiisa, si weliba isxilqaan shaqsi ahaaneed ay ku jirto. kooxdaada oo aad ka hesho dhiirigelin, macnaheedu waxay tahay inaad hesho wax soo saarka heerka ugu sarreeya iyo inaad hesho kalsoonidooda iyo kalgaceylkooda. baro furayaasha kooxdaada. sida albaab walba uu u leeyahay fura ayuu qof walbana u leeyahay fure. furahaas ayaa kaa caawinaya hawsha uu gudanayo si habsami leh. dadka qaarkood waxaa furu ah in magaciisu uu muuqdo. qaar ayaa ah in la xusuusiyo aragtida ay nolosha ka leeyihiin. qaar kalena waa inuu lacag helaa iyo wax la mida. ku dadaal ammaanta kooxdaada. inkastoo ereyga wanaagsan uusan wax badan qaadanaynin, haddana inta badan dadka ihtimaamka ma siiyaan ereyga wanaagsan. waxaa laga yaabaa in qof noloshiisa uu bedelo, taasina maaha wax fog. sidaa daraadeed, isku day inaad tixgeliso waxqabadka kooxdaada si kasta oo ay u yartahay, kuna ammaan adiga oo ku tarax tagaynin. ku dadaal caddeynta aragtida iyo ujeedooyinka qof walba uu leeyahay oo kooxdaada ka mida. mar walbana xusuusi kuna kaalmee qeexidda ujeedooyinka dhow, kuna baraaruji doorka uu ku leeyahay ama ay ku leeyihiin in la xaqiijiyo ujeedooyinkaas. qodobka saddexaad, baro naftaada si joogto ahna wax u baro. inta aadan baran kooxdaada, baro naftaada.
waxaa laga yaabaa in qofku uu is yiraahdo muhiim maahan barashada nafteeda ama xiriir lama laha shaqadaada, balse naftaada oo aad barata waxay kaa kaalmeynaysaa inaad mar walba daaweyso dhaliilada kuwaas oo saameyn ku yeelan kara kooxdaada, inaad u noqoto kooxdaada tusaale is-horumarinta iyo waxbarashada. kadib waxaa kor u qaadmaysa shaqada ay kooxdaadu qabanayso. guud ahaan waxaad ogaanaysaa qaybta kaaga aadan hawsha iyo qaybta ay tahay inaad u xilsaarto qof kale. qodobka 4, ku kalsoonow naftaada. xusuusnow inuu Ilaahay kuu abuuray inaad ku lahaato nolosha dowr, wuxuuna ku siiyey awood kuu kaalmeynaysa gudashada dowrkaas. ku dadaal sidii aad u ogaan lahayd dowrkaas, naftaada u horumari si joogto ah, ujeedooyinka waaweyn u deji, hana luminin kalsoonida aad naftaada ku qabto si kastoo aad u qaldanto. qaladku waa dabeecadda bini'aadamka, sidaa daraadeed ka baro qaladaadkaas si aad hore ugu socoto. qodobka 5, baro sida loo xalliyo dhibaatooyinka. waa wax la hubo in dhibaatooyin ay ku soo wajahayaan. qofka caqliga badani waa uu ka faa'iideystaa, waxa uuna ka dhigtaa fursad uu wax ku barto si uusan mar kale dib ugu imaan. iskuna day inaad dhibaatadaada salkeeda xalliso. haddiise aad dhaliilisato ama aad yaraysato, waxa ay saameyn ku yeelan kartaa waxqabadkaaga iyo midka kooxdaadaba. haddaba sidee ayaad ula dhaqmi kartaa dhibaatooyinka ku soo wajaha? sideese uga qayb qaadan kartaa horumarinta kooxdaada? hubi in dhammaan kooxdaadu ogaato dhibaatooyinka jira. mar walba ku dadaal dhageysiga fikradaha ka soo yeeraya kooxdaada iyo baahidooda, sidoo kale waxyaabaha ay ka cabsi qabaan. kala qayb qaado soo jeedinta xalka dhibaatooyinka. ku dadaal inaad wada gaartaan xalka kama dambaysta ah ee dhibaatada, kaas oo ay raali ka wada yihiin sida ugu dhow. u soo jeeda dhaliilooyinkooda si degan. qaladka waxa uu ka dhacaa qof walba oo bini'aadam ah. ku dadaal inaad u soo jeediso dhaliilooyinkooda si degan, hana iska dhagatirin si aysan u weynaanin dhibaatada. waa qodobka 6, baro wadooyinka qaadashada go'aanada. xadid dhibaatada oo aan si cad loo ogaan ama aan loo soo qeexin waxa ay keenaysaa in go'aan qaldan la qaato. xadid xaluusha bedelka ama waxyaabaha bedelka kuu noqon kara. qiimeyn ku samee dhibaatooyinka ka imaan kara. fuli go'aanka adiga oo aan wax labalabeyn ah kugu jirin. ku dadaal inaad la tashato kooxdaada. waxaan ku kalsoonahay inaad haysato qaybo ka mid ah tilmaamahan oo aan kuu soo sheegnay. isku day inaad kobciso si tartiib ah. ayay u suulaysaa dhammaan dhaliilaha. hana isdhihin maahi qof hoggaan ah. dad badan oo isku haystay inaysan hoggaan ahayn ayaa ogaaday in ay yihiin kuwo wanaagsan oo hoggaan noqon kara. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe.